Hey, عوا على الشطة دي. Alles Gute zum Geburtstag. Danke dir, Schatzi. waxaan leeyahay asxaabta caawa dhalashadaydi iyo labiskii oo diyaara idinka idin taalaya inaguna waa diyaar dubistu diyaar ya ya diyaar baa la wada yahay all people is ready kural magacaaga nimco muuse axmed baa la leedahaa waxaan joogaa magaalada hosteri kaamka Traaskiiqan marka dhibaatada meeshan ugu haysataa ayaan kaaga warramaynaa dadaan Soomaali nahnay waxaan bishii lixaad 12keedii xageed ka timid waxaan ka yimid magaalada Soomaaliland xageed soo martay markaa waxaan soo maray Liibiya Itaaliya to Hostri Hostri badda soo maray waxaan ku jiray habeen iyo maalin maxaad uga soo tagtay wadankayga dee dhibaato nooga soo tagnay kulli si garanaysa Soomaaliya dhib baa ka jira waa dhibaato imise safarkaagu qaatay imise bilood imise maalmood shaadu 5 bilood 6 bilood ilaa 6 bilood safarka bal xageed ka soo baxday marka la eego Afrika Soomaaliya waxaan ka soo baxay Ethiopia Sawa Sudan to Libya to Italia maxaad kala kulantay safarkaagii saxaraha iyo Liibiya iyo Sudan safarkayga waxaan kala kulmay adigu khayr bay kala kulmay insha Allah markaan bad soo galan bay igu macjisad badnayd habeen iyo maalin aan ku jirnay ee doontaan ugu dabashantay doontaan ugu dabashtay habeen iyo maalin ku jirnay laakiin wallahi waa ilaahay uu ka badbaadiyay alxamdulillah rabbil caalamiin kadib maxaad dhacay markii doonta dabashay doonta dabashtay waxaan badbaadiyay marka Mareykana imisa qof waxaan hay adigu 380 qof oo shan waxaan hay laba doomood baan hay marka cid waxma noqotay may cid waxma noqon laba dumar aan ugu dhalay cid ma noqon alxamdulillah waxaan badbaadiyay markabkaas Talyaaniguna keenay Talyaanigi waa kaamil lagu xareeyay qaarna fara laga dhigay qaarna way diideen annagu waxaan ku soconay Sudan waxaan dhahnay waan dhaafeena hostri baan qabato fara naga dhigtay marka imika halkan baad degan hostri imika ayaa 5 bilood ba jooga xaaladaada ka waran xaaladaydu wallahi waa ma fiicna kuma fiicna hostri ma wanaagsanaba waayo hostri waxaan nagala soo kulmay dhaawac aad culus waxaan nagala soo kulmay muxuu haayay dee waxa ay iyadoo naqaabileen iyadoo wax xalaalo caadi ah noo qabanin hadda salaad ka baxna faraaq ayaa meesha ku soo qabanayaan xaaladeedu wallahi hostri ma wanaagsanaba xalaydiin qaabili laayeen waxa ugu wacan qaabilaada dee meesha kaamka waxa haysta systemkeeda ma garanayna laakiin qaxoontigii bay diideen ba qaxoontigu ma qaabilayaan way celiyaan qaxoontiga baladeeda laakiin dadka Syria iyo Afghanistan ma daa wadankan si weyn u soo galay si weyn baa loo qaabilaa si fiican baa loo siiyaa sharciyada marka Afrikaankii waxa loo qabanay ma jirto Nigeria dan Soomaaliland dan Eritrea meeshan ku dulmanay waayo maxaa ugu wacan meesha waxa ugu wacan maamulka sare meesha jooga waa Afghanistan iyo Syria waxa meesha ka maamulaha safarkaaga haddaan ku noqdo kharash intee leeg baa kugu baxay waxay ugu baxay ilaa Soomaaliya ilaa wadanka waxay ugu baxay 4800 oo Liibiya 4800 oo Liibiya iyo 1500 oo marka la keenay wadankan adu waxay ugu baxay 8500 ugu yaraan 8500 dollar ha marka hadii aad ogaan lahayd safarkaaga halistiisa ma soo gelin lahayd ma soo galaan mana soo bixin lacagteeda waan iska haysan lahaa mana soo bixin mana soo doonteen haddaan saamooday lacagteeda waan iska haysan lahaa wadankan wax kaga qabsan lahaa hadaan mooday yuruna saaf yaad uga soo tagtay Soomaaliya waxa kustii hooyaday iyo ciyaalkayga iyo aabahay iyo dadka awlaadeedii laba ciyaal aan dhalay inaan bandhalay imisa jir way labaduba inankuna waa 3 sano inantuna waa 2 sano waa sanadii 9 bilood amiir iyo amiir la khaleedaado goorma kugu dambeysay waxay ugu dambeysay bisheedii sanadkiisa 2014 bishii tobnaad marka misla xiriirdan iminka waan isla xiriirnaa waan isla hadalnaa maxay ku yiraahdeen de wallahi waa markaan dhaawacmada loo sheegay inankaygu wuxuu wax sameysay way waan ogeey inaad dhaawacantay inaan ku ogeey ilaahay ku fuuday dhaawac baa igu dhacay halkan dabaq halkan ka soo dhacay meeshan aan joogo maxaa kugu dhacay maxaa uga soo dhacday walaal de meeshan cadaalad ma taalo Soomaali hadaan nahnay meesha cadaalad ma taalo moobila iyo wax yaadu u dhaxal Syria ma islaanay kadib Syria waxaan islaanay waxay noo soo qaadeen booliska dibadda ay noo saareen anaga Soomaaliya oo badan inaan ku warrami doono meesha jooga iyo anaga kulligeegi dibadda nagu dhaanseexda dadkii naga qaatay moobiladii alaabta naga qaatayna dadkoodii baa markii uu turjumo hadlay afkiiba garanayay annagu si dhibtiyaasana haysata kadib anigu noon ku soo noqday kaamka markii dibadda ay saaray dhibta darteed baan kaamka ku soo noqday iska soo tuuray dabaqa aan siri dabaqa saddexaad iska tuuray oo maxaad soo tuuray dhibaatada ay haysta meesha iyo daryeel la'aanta iyo qaabil la'aanta iyo booliskan
ragga kala warramayaan waddanka waa anaga aan nagu qaabilsanay haddaan Afrikaanna marka dabaqa iska soo tuuraysay maxaad maanka ku haysay maanka waxaan ku hayay badda inaan iskaba dhintaba inaad istishaad doonaysay noloshaygu igu adkaatay dabadna maxaa dhacay meeshan baan meel baan hayn walaal meesha meel wanaagsan ma aha hay dabaqaad ka soo tuurtay kadibna maxaa dhacay kadibna dee afar cishaan kuma ku jira dhakhtarkan aalay hay maxay see wax ku gaadhay la gacantan labada gacmood ka jabay dhabarka hay imkana alxamdulillah dee walaadkaagana ku warramaya aan ka soo baxay koomadii markii dambe soo caafimaaday كم باك يقول سعودية ماشي يقول سعودية كم في يقول سعودية يمكن في عنها الحمد لله رب العالمين كون في عنا ولا حقق وحلاله حنقول لك هذا كبح بارس العوض سويدا نبح بارس الهواء يسوق بتن ما لودي يسوق بتن وطن هاي هلك يقول سعودية داوعة وطن كم بعد كل داوعة أنت حق ولا لا تشوف بيقولها حق أن كل شيء شرعي وحندوني أبان كل يبيت في عن الجي كذب ده جوري في عنا لا يمجي حين اللي قانا انترفيو وحبطنا لا ما شرعنا لا يمصين حق بعد حق ولا لا يقولها حقنا كم هيو حقي وحق وطن marka maxaad u sheegaysaa dadka ku daawanaya dadka i daawanaya waxaan u sheegayaa inayna horta dadka Afrika imika joogay ee walaaladeeda Soomaaliyeed ee sharafta leh waxaan u leeyahay horta Yurub waxay ma yaalaan hana ku sahmiyaan inaan Yurub timaadaan wixii naga dambeeyay kuwa joogayna ilaahay dee khayrkeeda ilaahay idin kulsiyo nala aragtino adigu markaad Yurub joogtay fariintaas oo kale soo maad maqli jirin markaan Afrika joogay fariinta kale waan maqli jiray laakiin waxaan suran jiray dadku waxay sheegayaan been imika waxay leedahay dhabti tahay darafoo daaya dhaxamo gaajo Afrika ma kuma gaashan jirin ba halkan baan ku gaajoonaaba aad baad u mahadsantahay walaal mudan walaal